bishan aynu ku jirno December sanadkan sii dhamaanaya 2024 ninkanaytii falka uu sameeyey dalka City Mareykanka marka loo eego haddii xukunka caddayn maxkamad buuxdo ay kugu hesho ay noqon karto inaad wajahdo xukun adag falka uu sameeyey ninkan isagoo maxkamadda ay hortaagan tahay kiiskiisa waxaa jirta in dalka City Mareykanka dadka shacbiyad uu kaga helo falka ninkanaytii uu sameeyey ninkan isagoo fal dila u geystay maamule ninkan bani ka ahaa caddaymihii markaa lasoo helay xitaa kiiska maxkamadda la horgeeyey haddana dadku waa kuwo ku taageersan ninkanaytii falka dilka uu sameeyey waxaana jirtaba in caddaymaha laga soo bandhigay xitaa ninkanaytii marka la baaroo kale in 3 xaraf oo kelmadood oo xabadaha u adeegsaday ay ku qornaayeen oo kale in boolisku ay soo bandhigeen ninkan falka sababta uu sameeyey dilka ah waxyaabaha ku qasbay sida dadka sababta ay ku taageereen caddaymaha magacyada markaas booliska ay soo bandhigeen xarfaha xabadaha u adeegsada ku qornaay yaa muuqaalkaniitii ku faaqidi doonaa balse intaan gudagelin muuqaalka markale waxaa ku xusuusinaa in muuqaalkan la gareysiina share gareyso haddii aad ka mid yihiin bahweynta nugu xiran nugu soo biirto waad ku maasatay waqtiga ku bixinaysa daawashada muuqaalkan aanu gudagalno muuqaalkeena maanta 4 December maalnimo Arbacaha xilli hore oo aroornimadii subaxdii ah saacaduna ay ku beegan tahay abbaaro 6:47 daqiiqo waxaa fal dil ah loogu horgeystay afaafka hore ee hotelkaniti lagu magacaabo Hilton kuna yaala dalka City Mareykanka gaar ahaan magaalada City New York ninkaniti lagu magacaabo Brian Thompson waxaana ninkaniti title ahaan xilliga City shaqadiisu ay gaarsiisneed ninkaniti dilka loo geystay in uu ahaa maamule company waxaana ninkaniti maamulaha company-ga uu ka ahaa shaqadiisu ay qaabilsaneyd caymiska caafimaadka goobta falkaniti uu ka dhacay kaamiradihii ka agdhaway goobta City caddaymaha booliska halka City ay ka muujiyeen oo kaamiradaha ay duubeenba waxa ay soo bandhigeen in xilliga City ninkan lagu magacaabo Brian Thompson uu soo hormaray afaafka hore ee hotelkaniti lagu magacaabo Hilton isagoona ku wajahnaa xilliga City inuu ka qayb galo oo maalinimada City qorshihiisu ay ahayd in uu shir maalgelinta looga hadlayay ereyada City markaa ka dhacay in halka City uu ka qayb galo waxaa jirta in goobta marka uu soo hormaray hotelkaniti lagu magacaabo Hilton hortiisa marka ay ku beegan yahay in dhabarkiisa dambe uu ka imaanayo nin dhalinyaro ah oo wejigiisu maskar ay ugu xiran tahay oo aanan la aqoonsan karin boorsana dhabarka ku sita waxaana ninkaniti dhalinyarada uu samaynayaa in bistoolad uu la soo baxo waxaana bistooladii ninkaniti uu adeegsanayay afka uu kaga soo xirtay bahal aamusiye ah si dhawaqa xabadaha ninkaniti uu adeegsanayo oo qorshaha dilka uu rabo inuu ku fuliyo aan loo maqlin waxaa marka uu sameynaya ninkaniti dhalinyarada ah ilaa iyo dhowr xabadood xagga dambe inuu kala dhaco ninkaniti maamulaha company-ga ka ahaa caymiska ee lagu magacaabo Brian Thompson deganaan isagoo ay ka muuqato iyo goobtii si caadiya marka City uu isaga tegaya waxaana goobta ku dhacaya ninkaniti lagu magacaabo Brian Thompson daqiiqado kadib waxaa dhacayso in ninkaniti Brian Thompson ee maamulaha company-ga ka ahaa ee goobta lagu hordilayba hotelkaniti lagu magacaabo Hilton hortiisa in gurmad caafimaad loo sameeyo si naftiisa loo badbaadiyo oo xarun caafimaad lala doono waxaa jirta in nafibo ninkaniti aan lala gaarin isbitaalka oo gurmadkii intii markaa loo fidinayay ay naftii kaga baxday halka City ninkan falka geystana waa hore waa nin meesha markaa City isaga tegay oo falkaniti marka uu geystay si caadi isagoo baqdin badan ba aysan ku jirin goobta markaa City uu isaga baxay waxaa jirta in boolisku caddaymaha halka City baaritaana ay ka bilaabeen si wax uun caddayn ay u doondoonaan ninka falkaniti geystana gacanta ay ugu soo dhigaan si ay ugu maxkamadayaan booliska oo cadaaladda loo marsiiyo ninkaniti falka geystay ee dhalinyarada ah ninkan oo 26 jir ahaa waxaa jirtay goobta marka uu yimaanayay in ninkaniti uu kusii xisaabtamaba in wejigiisa aan si sahlan loo aqoonsanin isagoo soo xirtay maskar oo wejigiisa kusoo xirtay goobta falka uu ka geystay intuu ka agdhawaa dhanna waxaa jirta in ninkaniti maskaraha City uu watay balse waxaa jirta hal caddayn oo boolisku u sahashay in ninkaniti wejigiisa ay aqoonsadaan boolisku maadaama ereyadii dhan oo falkaniti uu ka dhacay ilaa goobihii markaa City u dhawaayay ay kaamiradaha dib u wada baareen waxaa jirtay in boolisku caddayn ay ka dhex heleen kaamirad ku xirnayd maqaayadaniti lagu magacaabo Starbucks xilli ninkaniti xaggaasi wax ka iibsanaya maqaayada City waxaa dhacday in wejigiisii uu furo hal mar maadaama halka uu ka soo tegana uu falkaniti sameeyey boolisku caddaynta ugu muhiimsan ee ninkaniti wejigiisa inay aqoonsadaanna ay u dabagaleen waxa ay ka heleen sawirka City ninkaniti maqaayada uu kaamirada ay soo qabato wejigiisa hal mar maadaama halka City isagoo wax ka iibsanaya wejigiisa uu iska furay waxaa jirta in boolisku caddaymo kale ay ka heleen goobta ninkaniti xabadaha uu adeegsaday fooqaqooda in 3 kelmad ay ku kala qornaayeen waxaan 3daas kelmad marka City ay kala ahaayeen deny defend iyo depose
waxaana jirta in boolisku caddaymahan idil markaasiti isku aruuriyaan si baaritaan ninkaniti marka ay ugu sameeyaan. Ninkan dhalinyarada ee falka dilka lagu eedeeyay inuu geystay waxaa lagu magacaabaa Luigi Mangione, waxaana da'ad ahaan ninkaniti uu jiraa 26 sano. Nolosha uu kusoo koray iyo reerkiisii uu kasoo jeeday nolol ahaan haddii aan eegnana, ninkan waxa uu ka dhashay qoys iska ladan oo hanti haysta, waxaana yaraantiisuba ciddiisa familigiisa ay u hureen in qarashaad badan ay ku bixiyaan ninkaniti waxbarashadiisa si ay u wanaagsanaato, iyagoo u doorbida xitaa iskuullada gaarka loo leeyahay in qarashaad badan xaggaasiti ay ku bixiyaan si waxbarasho tayo leh uu helo. Ninkan Luigi Mangione xilligiisii dhalinyaranimada waxaa jirtay in marka uu xilligii wax uu baranayay in uu ku wanaagsanaa waxbarashada uu ahaaba sida la tilmaamay arday ku wanaagsan waxbarashada oo dadaalkiisa uu badan yahay isagoo kaalimaha ugu horey kasoo geli jiray xitaa. Waxaana jirtaba in dugsigiisa sare uu dhameeyey 2016 isagoona kasoo galay xitaa iskuulka ardayda ka qalin jebisay kaalimaha u horeeyo. Si hayaankiisa waxbarashada uu sii wato ninkaniti lagu magacaabo Luigi Mangione waxa uu bilaabay jaamacadda City lagu magacaabo Pennsylvania isagoona heerka koowaad ee jaamacadda ka qalin jebiyey 2020 waxa uuna bartay dhanka City computerka culumta ku saabsan. waxa uu sidoo kale heerka labaad ee jaamacadda ka sii qaatay isla jaamacadda City isagoona takhasus doortay in uu ku takhasuso culumta computerka. waxa uu qaatay heerka labaad ee jaamacadda shahaadada Master of Computer Science. waxaa jirta oo la tilmaamay in ninkaniti xitaa markaasiti uu ahaa nin ku wanaagsan xaggaasiti online gameski iyo waxyaabahaasiti aad u xiisayn jiray oo sida isaga marka uu tilmaamay xitaa waxa uu sheegaba in uu aad u danaynayo in uu isaga programmi uu leeyahay oo games uu soo saarto xaggaasna markaasiti uu ku foogan yahay. sida la tilmaamay ninkaniti dhaqan ahaan waxa uu iska nin dabciidiisu iska wanaagsan tahay oo ku wanaagsanba dabciga uu ku dhex joogay ee asxaabtiisa iyo dadka ku heeran iyo qoyskiisa in markaasiti uu kula dhaqmaayay dabeecad wanaagsan oo xiriirin jiray. laakiin waxaa jirta in 6 bilood ilaa sanadkaniti u dambeeyo kale in gebi ahaanba markaasiti asxaabtiisa iyo dadkii qaraabadiisa xitaa xiriirka uu la lahaa ee joogtada ah markaasiti meesha ay ka baxday. ninkan waxaa jirta sida markaasiti profile LinkedIn ah website markaasiti lagu magacaabo LinkedIn xaggaasiti profile dadka ay ku leeyihiin oo ay waxyaabaha ay qabtaan iyo takhasuskooda iyo heerka aqoontooda iyo gaarsiisinta ay kusoo bandhigaan si halkaasiti ciddii markaasiti isla shaqayn karaan ay uga wada xiriiraan. ninkan halkaas profilkiisa waxa uu kusoo bandhigay in shirkad lagu magacaabo TrueCare uu marka ula shaqaynayo kulana shaqaynayay data system engineering in markaasiti uu kula shaqaynayay. laakiin shirkadda waxa markaasiti ay tilmaamtay xitaa wada shaqaynta ninkaniti lagu magacaabo Luigi Mangione in wada shaqayntooda ay dhammaatay sanadii hore 2023. ninkan falka dilka ah sida markaasiti u geystay waxa markaasiti ka dambeeya iyadoo marka aan la ogaan karin sababta ka dambaysa xitaa. laakiin waxaa jirta in ninkaniti qaliin uu galay oo xitaa markaasiti mar barihiisa social media uu kusoo bandhigay sawir raajo markaasiti la saaray oo tilmaamaysaba in lafdhabartiisa qaybo ka mida biro markaasiti lagu xiray. waxaana jirtaba in sawirkaasiti xoogaha marka uu muujinayo in ninkaniti qaliin uu galay oo dhabarkiisa marka lafdhabarta qaybo ka mida biro marka lagu xiray. waxaa jirta xabadaha marka uu adeegsadaba ninkaniti ninka maamulaha kambaniga caymiska caafimaadka ka ah ee uu dilay in fooqaqa 3 xabadood oo xabadihii uu adeegsaday marka ka mid ahaa ay marka ku kala qornaayeen 3 xaraf oo lagu kala magacaabay marka uu kala doortay deny, defend iyo depose oo sida markaasiti laga aqrisan karo maadaama qaliimo ninkaniti uu galayba tuhumadiisuna ay ahaydba in shirkadaasiti caymiska caafimaadka aysan u diirnaxaynin dadka Maraykanka oo iyaga keliya sanad waliba dhaqaalahooda uu sii bedelo in markaasiti tabasho xaggaasiti uu tabanayo oo sida marka laga xaqiiqsan karaba warbixinada marka booliska ay aruuriyeen maadaama ninkaniti uu fooqaqa xabadaha uu adeegsaday uu ku qoray deny, defend iyo depose in markaasiti micno ahaan uu la jeeday in uu ku eedeynayo shirkadaasiti caymiska caafimaadka dadku marka ay garab uga baahan yihiin maadaama inta badan dadka Maraykanka caymis caafimaad ay qaataan in shirkadaha marka iyagoo keliya danaysanaya ay sameeyaan macaamiishooda in lacagaha ay ka daahiyaan mararka qaar markaasiti ay ku inkiraan oo kale sida ay uga baahan yihiin macaamiishooda garab aysan u siinin. tuhumadaasiti waxaa markaasiti la tuhmi karaaba in ninkaniti waxyaabahaas maadaama isbitaal iyo caafimaad iyo qaliimo uu galayba in dhankaasiti tuhumo badan uu markaasiti qaba uu la dhihi karaba ninkaniti cadaawada waxa halkaasiti uu kaga soo qaaday shirkadahaniti caymiska caafimaad heer isagoo markaasiti gaaraba in fal dila uu u maleegaba in shirkad ka mid ah shirkadahaniti caymiska caafimaadka bixiyo in halkaasiti marka uu go'aansaday in dadkaasiti marka uu kula diriro oo dhibaato marka uu gaarsiiyo. shirkadda laga dilay maamulkooda caymiska caafimaadkana ku shaqeynayay laguna magacaabo United Healthcare shirkado dhowr xataa urur ay ku midaysan yihiin ururkaasiti lagu magacaabo
United Health Group warbixin tacsiyo ay soo dhigeen bar ka mid ah barahooda social mediaha. Falcelinta dadka ay kala kulmeen waxa ay noqotaba in aan waxba loogu tacsiyeenin oo in dadku xitaa aysan u muujinin ay ka xun yihiin shirkadda City caymiska caafimaadka in maamulkoodii mid ka mid ah dil loo geystay. Ay ku faraxsan yihiin boqolka City ku dhacay shirkadda City oo xitaa ay ku dhiirigelinayeenba dadka ninka City dhalinyarada waxyaabaha uu sameeyey in uu yahay in uu nin ku amaanan falka City uu sameeyo oo go'aanka City uu yahay go'aan sax ah. Booliska si markaa baaritaanada ay u sameynayeen waxyaabaha ninkaniti ay ka aruuriyeen in ay warbixin ay ka aruuriyeen goobta falka City uu ka geystay sidoo kale wejigiisa sawir ay ka hayeen. Waxaa jirta in joornaalada ay ku daabaceen booliska warbixinta ninkaniti la raadinayena lasoo bandhigay. Ninkan goobta uu falka ka geystay waa mid markaa City iskaga tegey oo halka City ka fogaaday. Waxaana jirta in meel kale markaa City booliska meeshii uu falka ka geystay dilka meel ka fog ay kasoo qabteen. Waxaana jirtaba meel McDonald ah xilliga City uu ku sugnaa ninkaniti isagoo qaba in mid ka mid ah macaamiisha shirkadda City McDonald uu aqoonsaday face mask bulug ah oo tuhun uu ka galay oo isla markaa ninkaniti wejigiisa in xoogaha qaabka uu eg yahay qofkii la raadinayay iyo markaa City uu eg yahay. Waxaa jirta in ninka City McDonald macaamiisha uu ahaa uu booliska soo wargeliyey ninka City ay raadinayaan in nin uu uga shakiyey halkaniti uu ku arkay. Booliska goobta markay soo gaareen ninkanitina ay xireen waxay noqotaba ninkii ay raadinayeen in isaga markaa uu yahay. Waxaana kiiskiisa loo soo gudbiyey maadaama horena cadaymo ay kaga aruuriyeen booliska oo ay sawiraantii iyo kaamiradii waxay ka arkeenna ay iyaga usii dabakacayo in ninkaniti ay maxkamad kiisiisa u gudbiyaan. Ninkaniti isagoo kiiskiisa xitaa maxkamad uu yaalo dadka waa mid shacbiyad mar walba ka helaya oo ninkaniti waxaa markaa City uu ku helaba ammaan falka City uu sameeyey oo eedeenna isagana markaa City tuhmo dushi uu kaga tuuraya oo waxa uu sheegaba in falkaniti uu sameeyey isaga maskaxdiisa ay ka timid oo aysan jirin maskax kale oo ku lamaanan oo falkaniti ku dhiirigelinaysa inuu sameeyo oo shirkadaniti caymiska caafimaadka ka shaqeeyana mid ka mid ah maamulayaashoodii uu weeraro oo fal dila markaa uu geysto. Ninkan maxkamadda marka la keenay lagu eedeeyaba in waxyaabaha markaa City tuhmada ah marka laga soo tago dilkaba in lagu soo qabtay sidoo kale bastooladii dilka markaa uu ku geystay in hub uu haystay. Hubkaasaytina xitaa laysan uusan u haysanin sidoo kale dukumentiyo fake oo ID kaarra iyo waxyaabaha City inuu isticmaalayo kale warbixinada markaa lagu soo bandhigay. Waxaana jirtaba in xukunka ninkaniti shirkad markaa City dilku maadaama uu geystay iyo waxyaabihii cadaymihii la aruuriyey in maxkamadaba ay go'aansatay in marka ay wajahaya ninkanitina xukun ah second degree murder oo isku day heerka labaad ee dil ah in markaa City uu sameeyey. Waxaana uu wajihi karaa xukun maxkamadeed oo dhan 15 ilaa 25 sano. Laakiin ninkan waxaa markaa City uu noqonayaa nin dhanka City shacbiyad ku helaba oo waxyaabaha uu ku eedeynaya shirkadaniti caymiska caafimaadka in dadku ay la qabaan oo ay aaminsan yihiin oo shacbiyad uu ku helo. Hadda dadka Maraykanka markaa City aysan inta badan naxariis iyo abaal aysan u haynin shirkadaha caymiska caafimaadka oo ninkaniti fikradiisa ahayd in shirkadaha City iyagu keliya ay daneystaan oo dadka waxba markaa City aysan u haynin abaala oo wanaaga oo sidoo kale markaa ay isdabamarin iyo iyagoo danahooda fiirsanayo dadka ay ka macaashaan. Waxaa jirta in haatan shacbiyad ay soo taraysa ninkaniti fikradiisa ku raacsanba oo shirkada City caymiska caafimaadka ka shaqeeya. Waxaa jirta in eedeyn badan dhanka City shacabka ay kaga imaanayso. Ninkanitina waxa uu noqonayaa iyadoo maxkamad xitaa kiiskiisa uu wajahay in haatan markaa City uu ka mid noqonayo sanadkan sii dhamaanaya 2024 mid ka mid ah dadka dambiyo inta markaa City lagu qabtay cadeymihiisa xitaa maxkamad uu wajahay haddana weli kalsoonidii shacabka sii haysto falka City uu sameeyey inta taageero loogu muujiyo haddana markaa City la dhahayo fikradaada waan kugu raacsanahay waana ku saxsanayd go'aanka aad qaadatay mid ka mid ah shirkadaha City caymiska caafimaadka ka shaqeeya madaxdooda aad ku beegsatay.